aniga intaanan soo galin ka horay hilibka waxaan ahaa nin ka shaqaysta doomasha. maalin maalmaha ka mid ah waxaan soo qaaday haweeney aad iyo aad u qurux badan, waana ka helay. xitaa waxaan la imaaday gurigeeda si aan u mehersado, balse way iga diiday. sanad ka bacdi waxaan soo qaaday isla haweeneydii iyadoo sidata wiil yar. markaas ayaan damcay, waan habaystay, balse way i diiday. waxaan ka qaaday wiilkeeda yaraa, waxaana ku dhahay haddaada naftaada isku kiidhiibeyn wiilka yar ayaan kaa dilayaa. wiilka ayaan loo qabtay, madaxa ayaan biyaha u geliyey. wiilka yara aad iyo aad ayuu u qayliyey. haweeneydii ayaa haddana waxaan ku dhahay isku kiidhiib, haddii kale wiilkaagan ayaan dilayaa. markaas ayay haweeneydii aad iyo aad intay u baqday hadal ii soo celin waysay. wiilkeedii biyaha ayaan ku dhex riday, ayadana meesha ayaan ku dilay. assalaamu calaykum walaalayaal, isku soo noqod waxaana wanaagsan. waa anigu walaashin hani oo idinle mar kale kusoo dhawaaw qiso aad iyo aad u cajiib badan. qisadani waxay tusaysaa dad badan inay ku ximro qaataan, balse qisadeena intaanan gudagelin ka hore muuqaalka laygaree una dareensii inaad ka heshay. hadaa nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena, nagu dhiirigeli subscribe-ta, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya oo daawada muuqaal kasta aan soo dhigno. muuqaalkana sii sheer garee si dad badan ay ugu ximro qaataan. wixii fikradaadana kommentiga noogu reeb. aad iyo aada u mahadsantahay. qisadeenuna sida tan ayay u dhacaysaa. waxaa jiray nin u dhashtay waddanka Ciraaq. ninkani wuxuu lahaa kabaan, wuxuuna iibin jiray hilibka lo'da. maalin maalmaha ka mid ah asagoo wadada socda ayaa wuxuu arkay haweeney meesha lagu dilay. si uu u saacideeyo gaarigiisa ayuu ka soo dagaaday. mindidii lagu dilay ayuu ka bixinayaa. daqiiqada ka bacdi waxaa u imaadeen niman, waxaana lagu dhahay adiga ayaa dilay islaanta. wuxuuna ku qayliyey ma dilin. wax yar ka bacdi waxaa meesha imaaday booliis. booliiska ayaa waxay ku eedeeyeen inuu ahaa dilaaga, balse wuu ka diiday. ninkii waa la soo bixiyey oo waxaa loo soo taxaabay dhanka xabsiga, waxaana lagu xukumay inay la dilo. wuxuu dhahay aniga ma dilin, balse haddaad i dilaysaan aniga dhegaysta qiso yar ayaan la wadaagayaa. intaasi oo ah aniga intaanan soo galin ka horay hilibka waxaan ahaa nin ka shaqaysta doomasha. maalin maalmaha ka mid ah waxaan soo qaaday haweeney aad iyo aad u qurux badan, waana ka helay. xitaa waxaan la imaaday gurigeeda si aan u mehersado, balse way iga diiday. sanad ka bacdi waxaan soo qaaday isla haweeneydii iyadoo sidata wiil yar. markaas ayaan damcay, waan habaystay, balse way i diiday. waxaan ka qaaday wiilkeeda yaraa, waxaana ku dhahay haddaada naftaada isku kiidhiibeyn wiilka yar ayaan kaa dilayaa. wiilka ayaan loo qabtay, madaxa ayaan biyaha u geliyey. wiilka yara aad iyo aad ayuu u qayliyey. haweeneydii ayaa haddana waxaan ku dhahay isku kiidhiib, haddii kale wiilkaagan ayaan dilayaa. markaas ayay haweeneydii aad iyo aad intay u baqday hadal ii soo celin waysay. wiilkeedii biyaha ayaan ku dhex riday, ayadana meesha ayaan ku dilay. kadibna waxaan iska iibiyey doontii. maantana waxaa laygu ciqaabayaa dilkii aan u geystay haweeneydii iyo wiilkeeda. balse aniga ma aha dilaaga dilay haweeneydan, raadiya ninkii dilay si uu dad kale uusan u dhammaynin, sida allah subxaanahu wa tacaala uu noogu sheegay qur-aankiisa. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. qisadayna quruxda badneed halkaas ayay noogu dhan tahay, balse cimri qaadashada ayaa waxay tahay haddaa wanaag maanta walaalka u samayso berina wanaagi ayaad kasbanaysaa. haddaa xumaado u samayso isla xumaatada ayaa ku helayso. allow markasta naga dhig kuwii wanaaga qabta. waxaana qisadayna la socodsiinaysay anigoo walaashin hani ah. fadlan muuqaalka laygaree una dareensii inaad ka heshay. haddaa nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe nagu dhiirigeli, gambaleelkana furo si qisooyinka markasta aan soo dhigna oo la socdo. waana ku mahadsantahay sida quruxda badan aa u dhamaystiratay. intaa muuqaalkiisa xiga ku kulmi doono waxaan iiga tagayaa
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.